wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Ismaaciil Yuusuf oo weheliyay suduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal iyo madaxa xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhalaanka ee gobolada Awdal iyo Salal ayaa kormeer ku soo maray qaybaha kala duwan ee ka kooban yihiin xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhalaanka iyo waliba xarunta guud ee loogu talagalay in lagu kaydiyo daawooyinka kala duwan ee dhammaan ku howlgalaan laamahaasi intii uu socday kormeerka wasiirka ayaa xarumihii ay soo mareen waxay warbixino kala duwan kaga dhageysteen gabi ahaanba shaqaalihii ka howlgaleeyay goobahaasi madaxa xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhalaanka gobolka Awdal Maxamuud Ismaaciil Aadan ayaa si qoto dheer uga waramay waxyaabaha ay qabtaan xarumahan iyo baahiyaha ay u daboolaan dadka ismaahana way nagu yartahay oo ruumiska intaan haysanay naguma filla meelaad yar extension wixii moogtahay aanu heli karno iyadna waa qasab daruuri كل مشروع JPLG ما يكون له شوقة واحد ما كان رجينا سنة كان إن أبريل نجعويا لكن دير كاس يسوي emergency هان إن كمر سمين مسيجو أما إن سكوت شنو أما عد كله هنا وقتي لكن واحد كلا جب كاي وبهيهن مسيجو يكوش قينا ين وانقش سنتوان أنا يستوي بوان ولونه هي تندق بدل بورما أد بنجعويا أنا واحد بشاه نجمتي معه حنانا كسته واحد ما نسيده كده كنا دافعتنا يهلو أو بالكسته الله كياني وحويان وح موقتنا جنوجا بهي هنا أنا كشرين مركا مشروع ما يكونه هي JPLG duqa degmada Boorama ay suduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal oo dhankooga iyaguna hadalka qaatay ayaa waxay si dheer u tilmaameen iska baabaasanaa digeedu dib habeen ma ku sameeyay macal dibadda macal qolka kabineeda waxa dhan waa isku habeynay waxaan ka dhignay meel qoladan wada shaqeynayna marka maamulda dejinta laba jeer ban waliba habeenteeda laba jeer ban loo mashruuc kala gelinaa maanta qalabkan imka hooyada lagu wacyi gelinayo saddex bilood ka mar baan wixii stationery mar daweyno gaabkii mid safe naga la wareegnay biyaha anaanooyinka iyo leerkaba annaga bixina biyaha leerkaba anaanooyinka tobanka degmada ee Boorama ku yaala marka hawsha maamulda dejinta saas oo socota wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Ismaaciil Yuusuf oo isaguna gabagabadii goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku amaanay madaxa xarunta caafimaadka ee hooyada iyo dhalaanka gobolka Awdal inay si howlkar leh uga soo baxeen waxyaabihii loo igmaday iyo shaqadii ay u hayeen shacbiga ku dhaqan deegaanada gobolada Awdal iyo Salal Soomaaliland dumarka uurka leh isku dhintoo dhan waxay ka badiyeen inta badan 40 jir dinteenu si gaal intuu meelaha ku qoradabnaa iska qaadano dumarka Soomaaliland waxay u dhintaan markay uurka leeyihiin way majority-goodu waxay horeystaan ma guursadaan ama ilmo dhalaan markay 40 wixii ka dambeeya way iska aamin way qaadan inuu sheeganayna inta xaq baa umadeena iyo dumarkeena waa ku dambi in laga sheego arinta xogteeda haysa ma jirto markay runta sheegno qolooyin gaalan bilitood hadlay baan ku wariyay ku yireen wadamada wax baan ku jiraa xog Soomaaliland ka soo baxday dawladdeeda ama wasaaradda caafimaadka oo sidaas sheegaysa ma haysan may wajaamacadde magaalada Boorama